kulanti iyo daawasho wanaagsan halkani waa Warlalis Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale qodobada aad daawo doontaan haddii Allah wadala laga helo waxa kamid noqonaya saaxiibayaal sarkaal hub kala soo goostay ahlu sunna iyo qoorqoor oo cafis iyo ballanqaad u sameeyay Mustafa Cagjar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo si kulul uga hadlay xaaladda Itoobiya iyo jabhadda hubeysan ee TPLF sheegayna in Soomaalidu dagaal ay u diyaarsan tahay Jubbaland waa awaamir culus dul dhigtay dadka garsoorka u raadsada maxkamadaha Al-Shabaab xog cusub oo laga helay sababta dalka looga eriyay ku-xigeenka midowga Afrika ciidamada AMISOM iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq oo ka badbaaday isku day dil oo lagu khaarijin rabay qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawo doontaan saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay ee channelkan soo booqato saar subscribe like tana saar si aan u helno saaxiib wanaagsan oo adiga oo kale ah madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa xalay cafis u fidiyay dhamme Nuurdeeq Cali Cabdi Faarax oo ka tirsanaa saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug kaasi oo ka soo goostay ciidamada ahlu sunna Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa madaxtooyada galmudug ee magaalada Dhuusamareeb loogu geeyay sarkaalkan waxa uu ku amaanay go'aanka uu qaatay isagoona cafid guud u sameeyay amrena in loo fasaxo mushaarkiisii oo horey looga xiray kadib markuu ku biiray kooxda ahlu sunna madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa dhamme Nuurdeeq u sharciyeeyay qorigiisii oo ahlu sunna kala soo goostay kaasi oo si shakhsi ah u lahaan doono sarkaalkan sida ay xaqiijiyeen xubno ka qayb galay kulankan gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa la socday sarkaalkan markii madaxtooyada galmudug loogu geeyay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor waxa uu ballan qaaday madaxweynaha galmudug in qof kasta oo ka soo goosta ahlu sunna uu cafis u fidin doono sidoo kalena waxa uu ballan qaaday in qof kasta oo hub kala soo goosta uu si gooni ah u abaal marin doono kadib dagaal cuslaa oo ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay ku galeen degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud hadda waxay dagaalyahanadu fariisin ka sameysteen deegaan lagu magacaabo Bahol oo 40 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan xarunta galmudug ee Dhuusamareeb waxaana halkaas la sheegay in ahlu sunna ay weli wado abaabul ciidan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Itoobiya xilli kooxda TPLF ay ku haminayso inay qabsato magaalada caasimadda oo ah dalka Itoobiya ee Addis Ababa madaxweyne Mustafa Cagjar waxa uu walaac badan ka muujiyay mustaqbalka dalka Itoobiya iyo ismaamulka Soomaali galbeed haddii Tigreegu ay qabsato magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya madaxweynuhu wuxuu hadalkan ka sheegay madal ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya isagoona hoga tusaaleeyay dhibaatooyin ka dhalan kara haddii TPLF ay dalka qabsato haddii aad maqashaan ciidamada TPLF ayaa Addis Ababa ku soo socda waxa sidaas oo kale maqli doontaan ciidamada Soomaalida ayaa ku wajahan Addis Ababa si ay uga difaacaan ayuu yiri madaxweynaha dowladda deegaanka Mustafa Maxamed Cumar Cagjar waxa uu sheegay in Soomaali ahaan ay u qorsheysan tahay inay difaacaan isla markaasina ay deegaankooda u ogolaan inay Tigreegu dib u qabsadaan xog dheer ayaa ka soo baxaysa sababta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dalka uga ceerisay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya warqad 4 November ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa Simon Malonga looga eriyay dalka isagoona lagu eedeeyay inuu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyo aan waafaqsanayn waajibaadka AMISOM iyo istiraatiijiyadda amniga Soomaaliya waxayna wasaaraddu ku amartay in dalka uga baxo muddo 7 maalmood gudahood ah ila weerarada ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa horey u sheegay in Malonga uu ku kacay xadgudubyo ay ka mid yihiin arrimo dhaawacaya qaranimada Soomaaliya oo ka dhan ah siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah madaxda Soomaaliyeed ujeedada hay'adaha shisheeye iyo arrimo kale xog cusub aynu helnay ayaa sheegaysa in arrimaha dhaawacaysa qaranimada Soomaaliya ee lagu eedeeyay Malonga ay tahay inuu caqabad ku noqday qorshaha kala guurka Soomaaliya oo ah isku dayga dowladda Soomaaliya ay doonayso
in AMISOM lagala wareego amniga dalkeedana ay dib u hananto ciidamada AMISOMna ay ka baxaan ugu dambeyn 2023. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ahmed Duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo maalmo ka hor la magacaabay ayaa bulshada magaalada Kismaayo uga digay inay garsoor u doontaan ururka Al-Shabaab. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in aysan jirin cid garsoor u doonan karta maxkamadda Al-Shabaab, cidii lagu helana ay tilaabo sharci ay ka qaadi doonaan. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in maamulkiisu uu diiradda saari doono arrimaha amniga magaalada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada, waxaana bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga ee magaalada Kismaayo. Hay'adaha amniga maamulka Jubbaland ayaa dhowr jeer hore waxay shacabka reer Jubbaland uga digeen inay garsoor u doontaan maxkamadaha Al-Shabaab, balse weli ma jiraan dad loo soo xirxiray arrimahaasi. Ra'iisul Wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Qadimi ayaa ka badbaaday weerar lagu soo qaaday gurigiisa ee ka deganaa deegaanka cagaaran ee magaalada Baghdad, kaasi oo loo adeegsaday diyaarad nooca daroonka ah. Weerarkan ayaa dhacay xilli dambe ee xalay, waxaana gurigaasi ku noolaa ra'iisul wasaaraha xilka sii haya, waxaana lagu geystay weerarkaasi diyaarad noociisu daroonka ay tahay oo waxyaabaha qarxa lagu soo xiray, iyadoona qarax weyn laga maqlay guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq, iyadoona isla markii laga maqlay rasaas xooggan oo muddo daqiiqadaha halkaasi ka socotay. Ra'iisul Wasaare Al-Qadimi iyo qoyskiisa ayaa ka badbaaday weerarka lagu soo qaaday, waxaana fariin uu diray uu ku sheegay in xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan oo shacabku ay isdejiyaan, iyadoona ciidamada amnigu ay qaateen tilaabo ay amnigiisa ku sugayaan. Weerarkan ayaa ah noocii ugu horreeyay ee ka dhaca dalka Ciraaq, waxaana ujeedkiisu ahaa in lagu qaarijiyo ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq ee xilka sii haya Mustafa Al-Qadimi, balse kadib fashilmay. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo khilaaf uu ka taagan yahay doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Ciraaq, waxaana banaanbaxyo ay ka socdaan qaybo ka mid ah dalka Ciraaq. Guud ahaan saaxiibayaal, inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa war wixii naga soo gaaray Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Haddii ay tahay saaxiib markii ugu horeysay ee soo daawato channelkan, saar subscribe gambalaalka furo, siina share garay si ay u gaaraan asxaabtaada kale. Mahadsanidin.